روسيا تبي روسيا كوبا هي دولة اللي راها ليبيا وارسودا بس كنت سوماليا وارسودا بس كنت وارسودا عيدان توبيا ما سوق maanta waa joog waxaad ka imanaya magaaladii Burco waxay la joogay Ibrahim Cabdilaahi Cabdille Xagar ama Ibrahim Xagar Ibrahim wuxuu ka mid ahaa ciidamadii Soomaaliya sidoo kale wuxuu ahaa dadkii ugu horeeyay raacay jabhadii SSDF haddana halkaa wuxuu kaga soo laabaya oo mar kale markii SNM lagu dhawaaqay uu ku biiray jabhadii SNM waxa jira sheekooyin badan iyo dhacdooyin badan oo uu soo goobjoog ahaa sida isagoo mar laga tagay iyo aduu dagaal badan oo galay Ibrahim waran oo bal nooga waran taariikh nololeedkaaga iyo intaan anigu sheegay booyaane xageed wax ku baratay barbaartaadii xilligii aad dhalatay horta أنا واحد نشأ كل سجال بقول لحدن كي ريدي ما شاء الله ده هذا قلت حلو بقول شيء هذا قلت حل مقالة جودة هذا بقول شيء إمك عيال باكو قدام برتيان بقول شيء على هيو كريسنا عيال باكو قدام اللي يقول برتي اللي يقول تقول على عيال ياكو قدام وعيال متانا باكو قدام اللي قاعبوا وحبر الشدي أنا برعان قات دكسيجا hoose dhexe tugdheer dawladda hoose ee Burco ka dambeeya kaasaan dugsigii dhexe iyo kii koowaad ba ku qaatay kadib bacdi waxaan noqday koonfur intii ka dambeysay waxaan ku qaatay gobolka Banaadir waxaan halkaa ku bartay caafimaadka waxaan ku soo bartay Muqdisho dagaalkii 77 xilligii uu bilowday anigoo markaa caafimaadkii ka soo baxay oo ah wasaaradda caafimaadka muddo yar oo qiyaastii saddex bilood inay ahayd aan filayo aan u shaqeeyay baa la waxa la doonaya shaqaale caafimaad dagaalkii 77 loo qaado inta la soo ururiyay shaqaale caafimaad meel la soo keenay oo lagu daro la geeyo furmaha hore dadka soo daweeya marka waanu nin aad u yar baan ka ahaa nin aad u yar caruur baan ahaa waxa dhacday inay diideen dadkii markii la soo baxa voluntary qofkii galay halka u baxa ay bixi waayeen shaqaale bay bixi waayeen aniga nin yar oo ma jeerteena ayaa gacanta markii aan taagay soo baxbaa la dalka san istaagay yaa ku raacay mid yar ma jeerteena soo raacay waxa ku xigay niro isna marxaan ahaa dabeetana adugu intii kala qasab lagu soo guray saddexdeedaas markaan u baxnay wixii kala qasab lagu soo guray qasab lagu soo wada saaray dabeetana labadayadii iska joogaa markii hore waanu diidnay markii dadkii la soo guray lagu soo guray dadku iska joogay yartiina may baan ku raacayna anagu okay isla markaan noqonay labadii yaraa mid kaayo meel baa la har ma hambar waanu diidnay labadayadii aniga kii yaraa ma jeerteen waanu diidnay in cid kale aan meel kale marro laba nooc saaxiib waanu hay markaanu diidnay aanu barbar wada marayna dhinac baan la mariyay 15 ee dhinac lagu soo saaray 15 ka iyaga labadayadii madax looga dhigay walbaana madax laga dhigay kalena ku xigeen buu ku yeebay nala soo qaaday erkiisana la keenay soddon baa erkiisana lagu keenay 15 meel baa la mariyay 15 meel baan ku maray adugu halka waxaana loo geeyay ciidan la yiraahdo guutada shanaad ka tirsan qaybta lixlaad ka tirsan guutada shanaad la yiraahdo ururka 13aad dhufsade oo geebigiisuba shoobriste aha ayana loo geeyay ciidankaas waa ciidan shoobriste ah dawladuna waxay ugu tala gashay inaanu dagaalka ka soo noqonin isagu markiiba xaqii hore jabhadii waxba toona laba qadkaas loo geeyay kii markii loo geeyay faraskii waxana la geliyay meesha la yiraahdo Wajaale oo jariir dabeetana Wajaale markii aanu galay waxa dhacday in
من aad adag baxay Itoobiyaanka meesha ku jiray من aad adag gaadhi dhab inaga gubeen iyo maca saraakiishii ku jirto saraakiil ku jirto in waxdii ku jiro ay gubeen markii meesha way ka bixi kari waayay laga saari kari waayay dabeetana maray casarkii tahay casarkii ayaa qaar yiraahdeen guri jibri baa meesha ku yaalay jibriga waxa la yiri waxa yaala documents badan iyo lacag badan iyo waxba yaala nimanku jibrigaas ilaashanayaan baa la yiri kana tagi baa la ku tabiya ku dhinto ina lagu yiri kasaan ku nidaan ka qaadno taliye meesha watay ayaan ku nidhi intaanu koox ku heshiinay ayaan ku nidaan aan taliye noo san ku nidhi anaga geelina meesha marka meesha ka saareen markaas ay uga baxaan anaga ka saareen calanka aan soo fureen calan muhiimada dalka marka la kala qabsanayo meesha calanka taagan ninka gacanta ku dhiga in ba guusha leh ninka calanka gacanta ku dhiga meesha ka taagan ayaa guusha leh taasina meesha ku jirtay moogtay tan calanka san furan anagu dibatan markaas ma fadhiyaan meesha marka calanka la digno dibatan waxa la soo digay anaga aan qaana baan ku nidhi gaari beebeeya oo dul furan ayaa koox 330 fuushay taliye kooxda iyo aniga ayaa galay oo dhaqaajin toga biya marayo jiifa magaalada geed weyn baa jiro halka imika jibriga labada custom u dhaxaysa geedka quuraca ee xagga galbeed kaga yeelaan galbeed ka maray ka talowna waxa la waxay baynu ugu afrikeen ka gudubnay markaan ka gudubnayna waxaan kaga nimi galbeed shaanu kaga soo galay marka xagga marka soo galay xaggii dama kaga nimi rasaastii oo kaga qaadnay anoo inta dadkii xagga dambe laga dajiyay oo in yar bireer la dajiyay calankii waan ku dhufaray turuska gebigiisiiba gaadhi turusku ku dhuftay turuska markuu ku dhuftayna calanki birti way dhacday calankii waan intaan ku gudubnay gaadhigii waan degnay waan la baxnay nimankii 7 midhan baan u dhiibnay iyo bardolo midhan gurigii baan u jabinay jibrigiina isna qasadii aan ku qaadan qasadii yaala baan raran daqiiqadan ku raran dabeetana nimankii dhabarkii dambe ayaan ka jibinay markii aanu soo weeran u dibadda uga baxnay ay kaceen nin dhabarka laga maray fadhiyeede ciidankiiba dhabarkan ka jibinay dabeetana si caadi ciidanka iyagu soo galay marka nimankii dhabarkiisa ka maray nimankii xabad toogana dhabarkii dambe ka maray wixii waxba kama bixin wax la dilay iyo wax nolol lagu qabtan ka dhignay gebigoodiiba waan noqonay meel banaan baan meel la yiraahdo mashruuca biraha tagnay markaan biraha tagnay maalintii dambe koor maqriba ayaa waxa taliyaha qaybta oo la yiraahdo Axmed Yuusuf Salhan ee amar siiyay taliyihii meesha haystay taliyii guutada Jacagrin ayuu amar siiyay amarkii waxa la siiyay ururkii aan anagu la joognay oo haystanay la yiraahdo Daahir Khaliif ninkaas wuxuu xir in aad iyo aad u qiimo badan baan aad iyo aad u qiimo badan buu oo wadaniya ninka markaa waxa la yiri bax meesha la yiraahdo Harooreeska ku bax gobyarey buurta xagga sheeka xigta gunteeda tarajay ka qodo waxaad ka haystaa baalka tigaajale dhabalka qodiyo meesha inoo yaale qorada miinaystaha kooxda sahanka iyo yaro koofiyad cas inta ka xisbaa leeyahay marka meesha dhamaysan ciidanka ka guuraha gal halka si halka weer looga qaado deetana waanu baxnay wuu yeeray wuxuu igu yiri unugaaga qayb soo kaxayso shan soo kaxayso in mari waxda caafimaadka marka 15 hore haysteen iyo 15 keegii baa jooga waad kuwaaga keen buu kuwii kale lama hadal waxa haystaan degnayta la dhaban qaybta kala haysta dabeetana waan kii ku xigay waan reebay afar iyo aniga baxnay gaari ambalaas aan wadan ka haysan habeenkii baan gudnay waan tagnay meeshii markii subaxii waagi bariyay ayaa la jeexay meel la dhaaf tarajaygi dibaalkiisii qod oo wadada dhinaceeda bari ka qoday ka bilaabay gaari beebeeya oo sahankan waxa la yiri bal nimankii intay inoo jiraan naga soo saami beebeegi iyaga oo meel ka dabcaynay dabridaan marka dabrid bilaabay meel ay ku dabridanayeen anu waxay uga jeedaan mar rasaasi ka ridayeen buu afka uga galay dabada ay soo qabteen way og yihiin inaan ciidan mashruuca biraha ka sokeeya aanu jirin
oo waxay lahaayeen basaasin aad u fara badan oo Soomaaliya oo Soomaalida deegaanka abay lahaayeen nimankani bebeeg bay soo riideen jibab bay ku soo riideen tawaangi bay ku soo riideen baabuur fudfudud bay ku soo riideen infantrygoodina way soo qaadeen gaadhigaani qabtaan bay ku talgaleen markii ay soo riideen waxay arkeen tigaajiyo siigadu cirka isku shareerto meeshii qodaya madaafiic bay nagu soo bilaabeen tigaajiyo cararay annagii waa bannaan meeshaanu joognaa in yaro balab ay leedahay kaynta had ninka caraama gaadhaya dee meel naga gaadhaya gobiyari xagga suka kayntu ka mari jirtay inana buurtaanu ku dhownaydii bannaan waxay noqotay in meeshii difaac laga galo laba qori oo biiteena baan wax waaweyn sidanaa biiteenkaygina waxba waan fici waayay biiteenkina waxba waa fici meel janta ka soo dhacayo waxba ma ficayo janta madaafiic baal waqla markaa Soomaalidu taqaanay oo qoriga la jantaha ayaa de baalkii ayaa indhaana kaga bedeleen mid labaad isla daqiiqadii diyaaradoodii baa yimi bahala F5 la yiraahdo iyo miiraaj iyo jad la yiraahdo nafta noo keenay saan oo dul haadaya ambalaaskii waxaan ku amray inuu tago xidhka galo gaadiidka iyagii xabad beebe ayaa ku jirtay laba beebe baa ku jiray iyo gaari tiri aasa intiiba waxa la yiri gala xidhka gala iyo gaariga taliyaha sallallahu loo baraha xidhkay galeen xidhka markay galeen waxay noqotay in aanu cadceeda ku dagaalano cadceeda in lagu dagaalamo xaalkiisu joogay calaa kulli xaal iyadoo farabaasna lagu hayo oo infantryga lagu garaacayo oo aanu xidhkii ku bartii balkii intaan u jeefsanay kala fogeynay taliyihina markiiba amar wuxuu bixiyay in ciidankiisa soo gaaro ciidankii dhammaan amar ku siiyay ciidankiina markuu wajaale soo dhaafay iyo diyaarad yeeshay inba meel bay ka tuurtay hurin la oran jiray hurin koowaad oo nin la oran jiray Cabdilaahi Dhafuuje oo ku dhintay meesha la Bakaka hurin uu wata soo talowday baabuurtii ka daadatay si toosa ay u soo lugeeyeen uu kala saaray yaaca buu yiri kala baxa buu kala baxeen orod inoo way idinku iskarab yaacay ka yaaca buu meesha diyaarad waxba ka qaadimayso kaas intii kale adu qaar ba ka dhaawacmay laakiin dadkii dib ay yaaceen diyaarad fiin firdhe bay ka dhigtay annagoo halkii difaac kaga jira way goor gaaban tahay oo ay naga mareen dhinaca cadceeda nagala wareegeen bariga nagala wareegeen cadceeda nagala wareegeen way dooneen xagga daba naga maraan ay ilaahay hurinta keenay anaan leenahay cadceedun ha dhacdo cadceedun ha idinka dhacdo markaa ka baxsateen marka kuwii baa ciidankii celiyay dhinaca naga maray naga dhaafay bay dagaal la soo galeen way soo kiciyeen adigu ciidan cusub oo dartiisa qabo noqday way soo kiciyeen nimankii dib ay u noqday markii gabarkan arkeen inuu gaabtay xidhkii dambe ayaanu galay meeshiiba waxay noqotay bartanu istaagnaba in diyaaradu nagu duqayso ummadana lagu dhufto cid alla cidna basaas inuu garan weyn meel dadkii reemiyiga basaas yahay oo cid walba ku sheegayso ay nagu noqotay dabeetana adigu waxay noqday markii dambe meen farba la bixi weynay aan taliyaha ku nirida waxaan leenayaa dadkan meesha degan dadkan aaga jooga ee leedin caanay keeneen ficilka dadka la laayay baan hunaa la baadho la laayay si kale ma leh aniga iyo nin la oran jiray Cabdilaahi Dhafuujaha iyo nin la oran jiray isagana waxa la oran jiray waxa reer nuur gudabiirsi reer nuur buu ahaa oo ayaa bixiyay aniga oran kana la laayo dadkan weeyaan adigu tii dhowr basaas baa la qabtay markii sidaa la yiri dhowr basaas baa la qabtay waa maalintii ugu horeysay diyaarad rasaas ridaysa rasaas yar aniga nin aan barigi dawo bixinay breakiya ayaa geed ka galay geedkii aanu joognay sidaa dhinaca uga marisay si baridaas oo dhan bay ku jartay gebigiisiiba bal rasaas oo yar waa maalintii ugu horeysay diyaarad rasaas ridaysa weligeey ma arag maalinta ka hor ba arag ما المودين ما نقول ما حسد ديارد wax weyn bay tuuraysaa wax waaweyn bay tuuraysaa baan islahay laakiin qoriyahan yar ma noqon markaas aan soo yiri alla breakiyay dishay breakiyay diyaaradana breakiyu yaqaan mugti breakiyay ba fahmi waayay diyaaradda waa gartay breakiyay ba fahmi waayay breakiyay baa soo sheegay breakiyay ku dishay breakiyay iyo deetana waan eegay meel aan xidhan ka waayay ninkii waa baridii oo dhan de meel alla meel aan xidho
meelan duugaan ka waayay moogta dadna ambalaas aanu yeeray markii diyaaradda naga tagtay yaan ambalaaskii dhiig joojiba wax ka qabanaysa dhiig joojin wax ka qabanaysa ma hadee dadna baarigan ambalaaska markii dambe saaray saan la baxso na dhaafi soo dhigibilay ka soo dhaqan على كل المشي أنا القرر ري بحاول تغني ما شاء الله هذا الله يبضي بانو تغني الله يبضي مركانو تغني اللي به بينه هو يعني يا وحيمي تليه قيبته أحمد يوسف سلحان وحيمي جامع جرين وحيمي لورن شري علي عمر عبد الله علي عمر فنتنتي اللي قلنا نشتري فنتنتي وزداد تلسك جودها dabeetana waxaa la yidhi fashilaadii ciidankii ku dhacday ayaa wax la iska weydiiyey marka waa soo jabteen Soomaaliya baan uga baxnay marka meesha iska nasotan ma aan waxaan fulinaba daayay aniga isla haleeli weynay kuwa ay badba boor ma galay badba gibilay galay badba garkay goolka galay baabuurtii maalinta la helay oo la soo ururiyay ciidanka la soo ururiyay ciidanaad xoog badan oo waxa dabeetana halkaas marka meesha lagu ururiyay alay badan bay noqotay la isugu wada keenay talii بال الحاجة نبح تلي بال الحاجة نبح كيكو حاجة حاجة نبح بالليلي نيكلا عبد الله دفوت شو مويانه دم ما وحي تليالها هل كسل مري ترى ولين بدنا هل كسل توي هل كابر قال توي أيا نمان كوفير عسامي إيش مريا سين وح كلو يجينا بالله حريرة نمان كيبل بدل من رون بالله جوا كيف جودي بقى ودل توج شاب بالله عيدا كانوا في شيء عيدا كده معنا وفيشو فيل بالجوز مع مدافع دي والله مدافع هي ستي مع وحي الله ولا بده فيشي هلك عيد دنا فيشن مسؤولين تيني بالكوهر حري وانا الكوهر حري با انا markaa de nin ciidanimadu cusub tahay baan ahay nin waxaan oran wax cusub tahay baan ahay aan waxaan oran de fahansaneen dibka jiray waxyaabaha waxa dhool jiray sharciga wax qabanaya midna markaa ma fahansanay in yar de caafimaad jiro soo qaado meesha kan maana tagu daray taasay ahayd isla markaan u eegay ayaan baas dowladda waan istaa qorin waan istaa saasaan u eegay moogtay سانكور هيا هيا صوت محي بالله حريري سلوال تو معيار سلوال توغنيا تتانا انتان عيدا شريه طبعا كاي غودو في شيء حفاظك انا ورتاغن قول walba saas ورتاغنتي waxa la wixii meeshii Cabdi Ilaahi Fuuji laga tigay Cabdi Ilaahi Fuuji noo soo gurbaday kin kaas laga tigay dabeetana marun baan idhoon marba saawiga saan ku uri markuu waa dil toogashaa ولا توغانيا ninkii dambe hawsha siday tii u filwaan wala tooganaya iyagana imka wala tooganaya ayaan ku uri beenta weey saal wax kale weey beenta weey toqoriga amaanka ka rogay beenta weey maada ku dhacayna toogato madaxdiina difaac waan ku madaxdiina difaac nimayo waa askartii mar qulbay qaylistay gebi noo soo warmar ku sameysna ku dhawaaq mar qurun bay qayliyeen ba kaceenba qayba ku dareertay xarkii bay ka jareeba رسالة دب سرقيش بدي بيو عادي دبيو يعني والله كشر حركيهم ترى ربا أمرديد أسمين أمرديد عبنا سمين سعبنا أمرديد وسمين ونسكب حنا سكت ترى ربا قولوا واللي بود ديار جرودي عيدن كيدي وحيدي هوب كيدي وديار صتي ماشي حبيبي يعني مريت تلاش اللي دينا ولا لنا مرتين شوبريني بال أسكرتي باي تديني نون هاي سديب ديار جرودنا عم وطن قرن تبي تنا هالكاميرا كنقطي أنا مركز كان نقطة أنا سدام نقولنا أيوه أنا كي يقول لك سايو رقال قاعدة شو برد أنا جوهر يا محي بالعابي نكيس تلياها إلا حريقي مش هيستي طاهر خليف ما دحية ما تشوي كذا ما دحية ما تشوي كذا مركز طبعا بحرين أنا لقيتك وأنا لقيتك وحيجي مع السمطر على السمطر بنوي مال صدحاتي إنه صنّد على سمة الورد يعيب. طبعاً سمة الدين بقى سنة كواحلة. وحويان أن والسبب. دجالك بس صعبة. دجالك ورك بلود الصوب وبلود ولين واحد شبه هذا صعدة جدا قالوا هريراك دجال ما هي لكن ملة تري قالوا أمريكا جوريسي. وأمريكا ملة تري قليل. إذا بدهم ملة تري توس لو قلني. توس بركي لو قلني. مركا واحد وقلي حاجة وحاجة صو قلي وصوب بلودي. oo warneer iyo la soo qabs warneer iyo la qabsaday gudayba dagaalkii ugu qaraar ka soconay dagaalkii ugu qaraar gudayba ka soconay la kala galbeed wali laba galbeed ka salbila ciidankayga ka tirsanaa hurin ahaa hurin kuwa la oran jiray
hurin joogtay meesha lagu yiraahdo lughayo ayaa lagu shubay oo aaga ka dagaalamaysa aaga Dirdhabe hor lagu shubay jabada la raaciyay darcad inta loo geliyay jabadan military darcad loo geliyay ururada inta hore laga qaaday riyo la uriyay jabada lagu bilaabo dadar gutadiina waa mar hore waxa la sheegtay in la yiri yaani soo noqon dagaalka soo noqon wuu qorshahay gaar maalinta sala gaar inaan guutada marka soo noqon maalinta aan soo baraasayna la gaar go'aan kala gaar markii la soo noqday caalisimadu soo noqday waxaan loo keenay joornaaladii xigta October laan loo bardhano masaxana la keenay oo soo fayliyay ciidanka dib loo soo fayliyay waxa gudbay caalisamada wuxuu dhageysta saraakiil badan oo wada dhun casna meesha 10 karo la keenay ciidamo badan baa la keenay oo lagu soo dhaweeyay dhageysta buuri gudaha galaysa nimka laga bilaabo ninkii soo noqday dilto gashaa saacadu noogu sheeg ninkii soo noqda ciidanka wajiisa eegta burkii ka soo noqday hal toogta bur kalmad kala moor qofkii dib uga soo noqday inta laga qaada hal toogto waay hadda doonayay koordinasi baa leeyahay jaakeedo yar yar oo fudud dagaalka lagu galo joornaal buu soo qabtay ka dhaxanta ka xishada joornaal xiddigta October saan miyaanu akhrisanaa سلام آخر استعمل حنتي سكدي حقا في راك كشة سايس كده ده هبين كي بعمل هبين كان جوري قبل بيحمل تغني وكسر نقولنا فضاي جماعة الله رابع نمي وما هو رقا هبين مركن هبين شو كده ونكو جوري هالك هبين كتابه فيت كرقا آخر هبين ما يعلين دي لكن محن على السيء محن هاي سنة ورسكاسين عصرية أنا ورسكارتي دم ما نارك لا يمكن تنجو ولي ورسكارتي دم ما نارك بحالا يرير وعد مدوف وحيوه كائن رادياش فيلبس كها ولكن يرير ودو ساو قطقطهما أتين كاير كله سيبله أي لهاين كيبل جلي كاسا بيتري وحقا حال حبو بيتري كان توشكا ده كوشة بيتري بالوسينا يا كاسات كهذا لسا ميل BBC تذكر كيسانيسا أو بدويل إلا تريس كوجس رأي جود على سطر بطل حديرسا حمر بطل حديرسا مثل ما يشد دون طل حديرسا أدون بالكاسي ونقولها عد كانوا تسكع قابينيسا سان ميل درجة مغل هذا من ربع حديرسا عندنا مواعيد وحولها كوبية توفرقيس بلها ولا لا كوريوس كرب حباض الرجال كرب الكرب بعد مرة هوس وكل بعض هوس بالسلوكورة قف كدوني سديتنا ما لسه جلجليسا نمبر راسه وجلس كوبي توقف الجلجلي ها مربع مدة لوري بشري على كل حال ما له رقم بركهاران ويرري بركهاره يلا كعنا دبان وقال هبينكي صبح يوم دب شلات تغني دبان صبح يسكلا هذانا كوقادني وانتشيدني هذا دورية طبعا بابور بنكوجبني أنا نحبون ما نقول أسكرين من حال أسكرين من نقول مركب بابور فلان وفلان مركب تيجانون كده لما قلت ورقة مش من بنقول عادي بدي أحب السلاقة لكن مركب ولا السلاقة صدق تبان تانجي ما تحتاج لقى كانوا 55 T55 يعني الله صوتها تبان تانجي ولا دارين تانجي قولنا أنا تشيل بلا داري عسكري تانجي تبان كده هل عسكري إن تانجي تشيلين يلقوا داري هذا waxaa kaloo la sameeyay in la dhaariyo iyagana waxay dhaarsadeen inaan chiip bahal ay dhaabal gabriyo Ethiopia ku lahayd chiipkaas inaan taangi qori wax yeelin ayana ugu dhaariyo waxaana la yiri taangi oo wada daba soconaysa anaga fentriga ka horeynaya raaca kood way fentriga beebeyada ku xigaya taangiga beebeyga ka soo horeynaya wali saasaan qarinta saa loo dhigay si fiican wax ku toogan karto adiga aan lagu toogan qaabka san xuweerar ma kaana garab asan ku shub wuxuu garab asan isugu geyn garab asan isugu geyn adigu sidii ku socon horta maalinta san xidigta wada halka marka uu tagnay soo halka joogana dib noo soo saaray ciidan baan bedelay ciidankii 10 taangay wateen 10 baa laga qabsaday 10 taangiba waa laga qabtay shanna waa la gooyay gacanta laga dhigay
dagaalkii Soomaaliya ku jabtay dagaalkii Soomaaliya waxa ku jabay Itoobiya ku jabay meel walba farta ka gali markii dambe kala kaleed jabay tii Ruushka jabay Ruushka jabay Ruushka Kuba iyo dawladda la yiraahdo Liibiya waar soo dhan bay isugu tagtay Soomaaliya waar soo dhan bay isugu tagtay waar soo dhan ciidan Itoobiya ma soo gali waayo waxaan soo taagnaa maalinta laga soo baxayay ayaan ka soo baxnay goray baka kamera dhaban ka soo baxnay waxaan la leeyahay waxa ka hortagaysan ciidan soo jabsaday wadada xagga ka daracad baa laga soo jabay moogta dadna waxaan ku go'nay jinacsanay meesha dhaban ku galay ciidan ugu nimi dheeda haysatay 10 kiis waxna dheedadii ka cad taangi mooyin fadar baa naarag taangi kuwad ruush baa waday ka ku xigaa ku baa waday xabadeedii buu karway sebenkii aan sare karway بقولي كنت تجيب أنا مقدون بقولي كنت كي تجيب بقولي كنت كي تجيب سدح كم يقولي وتي 72 أيوة طال تانجا وفضوض لانجروس لا تموتو لكن هو نقص دقائق واعي marka arkeen ciidan kan baraay ka caysa ahayn soo dhaafay nusebanka darandoori xabada taangiya 10 baan ku dhufarnaa 7 kari waay lagu taago dhaawac ma ka soo daabay maanta arkay diyaarad qaadinaysa tawaangi sida walaaltii ugu hortaan barto diyaaradu saa soo tawaangi saa dhigaysa maalinta yiri mid ogaadeen oo loo jiray Muqtaar ayaa mid ilmaadeerihiin ayaa ku yiri arwala la xidhiidh arada nagat oo isdaminay istami madfac waa ku aqoon ku fireed gashay moogti labadoodaba soo waan isdaminay istami buu ku aniga jirkayga dhigiska tuugsaday adigu xidhinta leedahay استمين اسبختي بكوري مال اسبختي ما حبدي تقول لك كده عايز تعرف كده سرعه قبصتي حب انا القصار بس اصل الصباح اذا بس استحم بين وحل اللاي waxa jiray istiraakil iyo askar badan la laayay cir laayay dad la siiyo burkana darajo fiican la siiyo واتشابتين يوان سو جبay waan soo noqonay wadka marka aan soo jabaynay maalinta la soo jabay madaxweyne uu yimi Ali Samtare uu yimi u joogay madaxweyne ku xigeenkii koobaad oo usirka gaashaadhigo janka ciidamada uu yimi madaxweyne Abraham uu yimi dad taraak darajo la siiyo cirka kana waxa diiday guutada sharad way diiday guutada sharad uu haysta Jaan Green uu diiday waxa laga dhaxsay dadka soo xulo keen baa waxba keen maayay buure anigu darajadii la siinay ana siinay buure uu ka diiday ciro uu ka diiday dadkii soo xulay hortooda wala laay si darajo weeyay maanta la soo xulay baas la mari hay ahayd inqilaab jiray falsafada inqilaabku guuleysto waxa ay ayuu la yiraahdo si xirba aaminsan in magam koonfurta hadii sal sameeyano tiibe la sameeyay moogti ya qorshaas ayaa jiray adigu ilaayo wala diiday waxaan nimi meesha gabli cilmi lagu ururiyay on ka saaray guutada sharaadi bambeel bal kala qabadsiiyay ururkaygu wuxuu degay meesha la yiraahdo Kalabayd bartaasa darajadii lagu faafiyay askar walba wuxuu helay kii bilad helay kii helay dib qof loo darajada helay waxa jirtay intii dagaalka ku jiray taliyahana watay ku adeerku walaalkii la xabad ku dhuftay inta qabsanay xabad ku dhuftay waxa galay sarkaal kale isagana uu ka badbaaday isaguna uu toogtay isna ka badbaaday وكان فضول نقطة وده ينير أن شرعي كان يحب وديتنا إن عاد وحنا نقطي كبتك اللي بدأ فيني لكن واحد اللي يسيه باللط قالينك وتداب بكو حكتا بلا داب بكو حكتا اللي يسيه بديهم صون ورنا يلكاسا سلوك بعد عيد سلوك بدن باجري وحال الديدين انقلاب كيف فشل ما يعرفوا كي عرف كان كقيب نقطي كي عرف كقيب غير انقلاب كي عرف كقيب نقطي ما وار لا صفتي تولد الانقلاب شاد برمش لقى تور وكو راعن
لكن نسيب وناق دي قيبتي وغير حبكم بفلين وغير كانوا شغلنا ما يفلين ويدقدقين ما حاجة عبد الله يوسف يعرق الهرور صدي